madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxa uu kulan ballan u leeyahay wafdi ka socda dalka Imaaraadka Carabta kuwaas oo maalgelin ku sameyn doona Soomaaliland dhinaca kalluumaysiga biyaha beeraha iyo kheyraadka kale Soomaaliland caanka ku tahay wafdigaasi waxay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee madaarka magaalada Hargeysa waxaana ku soo dhaweeyay mas'uuliin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland waxa wafdi qorshay noogu yimid ganacsiga iyo maalgashiga walaalaheen عربيد وكي مدلك إمارات عربتها. هور كلن كمدركان كسفتيجاسي وحوفتيجا وربحسيي أفر وزارات وكترسن حكومة الصومال سدا وزارة بها وزارة كلوميسيا وزارة بيها هي وزارة حنان حولها الصومال وحاني أجازمش وجود وزارة هاسي أي وربحين كسيين خيرات كالصومال عانك كتهاي يجو أصوب بندقي خيرات كاسي هل كوكتشرو يسيد الله أصوب بحكرا سيدا كلو حي وربحين كسيين تاريخ ذي الصومال ليه لين عسيا صدا لين عجناسيا يدين عدق علىها markii warbixintaas ay dhamaatay ayaa waxay waftigaasi kulan ay la yeesheen madaxweynaha Soomaaliland kulankaas oo ka dhacay gurigiisa magaalada Hargeysa wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Soomaaliland wasiirka wasaaradda biyaha iyo kheyraadka wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland oo kulankaasi madaxweynaha Soomaaliland ku welinayay ayaa waxay sheegeen inay soo dhaweeyeen waftigaasi ka socda dalka Imaaraadka Carabta Soomaaliland sida kalluumaysiga beeraha biyaha يا حنان حولها صوماليلاند. أنتم في بلدكم الثاني وأقول لن أقول لكم أيها الإخوة بل أقول لكم يا أيها الأشقاء. وهي تفاصيلها يسيد وحد ونسان يسيد وحلو مالكشان كرنا وأنكوض حرير دونا إن شاء الله. والذين كسودوي ودك وودكني وأن سودوينا إن مالكشتان دلكن نوع كتان قلنا وادل قيدين وهذانا وبرواقع وحولها هي قيبة كلا وكهذا ونسود ويننا ديار باردين هاي قدوميها وفتيجاسي كالسعودية دل كإمارات كعربتي مالجلين تكوس من دون الصوماليلاند أيصروح أو شيء إن يكون عين نبت جليدة كشرت الصوماليلاند أو كتالبوا دل جيس كأفريقيا وأو شيء المالجلين حوجن أو دين خيرات كاي كوس من دونان الصوماليلاند وحنودي نتمنى أن يتم الأمن والأمان على بلدكم الشقيق. احنا كشركة إمارات المستقبل من أكبر الشركات في العالم أو رقم 1 في العالم بالنسبة للمواشي الحية. مدحوينك Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaasna waxa uu sheegay in xukuumaddu ka tirsan yahay ay soo dhaweynayso maalgelin kasta oo shisheeye iyo mid gudeed aad iyo aad baad soo dhaweynaa wafdigan ama sharikadan ganacsiga ee ka yimid Imaaraadka waxaan ku soo dhaweynaa dalka iyo dadkaba aad baan ugu baahnahay maalgelintiina leenahay inay maalgashadaan waxaan noo farxadana mid kale inay dalka yimaadaan duruuftiisa iyo nabadgelyadiisa iyo fursadaha yaaleen ee arkaan aad noogu farxadaan waan ku soo dhaweynaa aad baan ku soo dhaweynaa